marka hore Cabdiqaadir maanta waxa aad sameynaysaa sanad guuridii koobaad ee Daily Sports ujeedada Daily Sports loo asaasay horta maxay waad mahadsantahay Binde iyo Astaan Cable Sport baanu salaameynaa horta ujeedooyin badan baanu sameynay Daily Sport waxa ku jira in ka badan 50 xubnood baa ku jira oo ciyaartoy isdhexgalka bulshada in balwadaha iyo qabyaaladda laga raysto in magaranaysa caafimaadka iyo jidhiska kor loo qaado waxaanu halkan ciyaarinay muddo sanadka ah ujeedooyinkii aan lahayn ee caafimaad dhiska jidhiska iyo maskaxdaba ahaa inta waan ku guuleysanay dadka qaybta ka ah waa dad nooci ah Daily Sports ma daayir badan yihiin ma dad dhaxaa ma dad waaweyn bal sharaxna may waxaanu iskugu talagalnay Daily Sport cid walba bulshada qaybaha kala duwan bulshada ku jiraan marka la eego dhalinyar ilaa iyo odayaal bay leeyihiin qaybaha ganacsatada siyaasiyiinta ma garanaysa mas'uuliyiinta dawladda ganacsatada madax bannaan dad hay'adaha u shaqeeya intuba waa qayb ay ka yihiin marka cid walba qayb ay ka tahay haday daa noqoto haday shaqo noqoto muddo sanada inay dad wada ciyaaraan aad bay u adag tahay waliba dad shaqooyin kala duwan haya bal muhiimadda maanta in leedahay muhiimadda wallahi waxay noo leedahay muhiimad aad u weyn bay leedahay waxyaabaha kamid ah joogteynta la joogteeyay ma garanaysa iyo commitment-ka ay galeen xubnaha kubadda ciyaaraya ee garoonkani taas ayaa kaliftay iyo maamulka iyaga oo ma garanaysa muddada sanadka ahayd shuruucda iyo xeerarka kubadda cagta iyo akhlaaqiyadka ku ilaalinayay waxyaabahaas waxay keeneen inaanu maanta soo gaadhno sanad dhan oon ahayn ma garanaysa koox dhisan saas markay noqoto waxay noogu fadhidaa macna aad u weyn inaanu sanad dhan soo ciyaaraynay gabagabadiina koo taagan 50 qof inay meel isku yimaadaan waliba ay ciyaaraan waliba adiguna aad gudoomiye ka tahay anagoo astaan ahaan layn ugu hambalyeynaya maanta ma jirta sanad gurada qof aad socon kartaan wuxuu ahaa qofkii ugu wanaagsanaa ama si joogto u iman jiray sanadka intii socotay Daily Sports waxaan horta halkan mahad gaar ah aan ugu celinaynaa Maxamed Cilmi Aadan oo ah asaasi fikradan ka dambeeyay marka oo isagu ahaa ninka xiisaha iyo xamaasadda kubadda u yeelay joogteeyayna ma garanaysa dadka kala duwan ee ma garanaysa kala profession ka duwan kala shaqada duwan intaba isku keenay meesha Maxamed Cilmi Aadan baanu leenahay hambaliyo shaqo wanaagsan baad qabatay